نحمد الله الذي أنشأ وصور، ونشهد أن لا إله غيرك يا من أسمع وأبصر، والصلاة والسلام على مولانا محمد سيد من بشر وأنذر، القائل من كفر مسلما فقد كفر، وعلى آله وصحبه ومن آوى ونصر. أما بعد، markii uu sheekha kitaabka alifay uu bisinkii barakeeyey oo ilaah mahadiyey oo nabiga ku saliyey, ama ba'inta kadib fa in al-ba'ith al-wahid li waxa kaliya igu bixiyey buu kitaabkan inaan alifo ila wadi hadhihi ar-risala risaladan al-bitan inaan dajiyo huwa an-nasihatu li'aamati al-muslimin, inaan u naseexeeyo dadweynaha muslimka ayaan oola jeedan u alifay buuli, iyo warada inaan celiyo ala bacd al-wahabiyiina wahabiyada qayb kamida al-mutadarrifiina kuwa mutadarrifiinta ah alladina yadununa bil muslimiina kuwa muslimka u maraynaya ghayra al-haqq haqqa sa'an u maraynaya haasoo dan al-jaahiliyati jaahiliga marihiisi u maraynaya oo yazcamuna sheeganaya anna man lam yakun wahabiyan in kaan wahabi ahayn fahuwa mushrik, waa gaal odhanaya, mushrik odhanaya, kuwa inaan ku radiyo xataa walow aqarra bishahaadatayn, labada shahaadaba xaqira qofku mar haddaan wahabi ahayn waa mushrik bay odhanayaan qofku. labada shahaadaba xaqiro waa qaamo salaada ha oogo, waa ata zakada ha bixiyo, wasaama ramadaan bishan ha soomo, waxajal bayta guriga ha xajiyo, intaasoo arkaan khamsihiya isagoo sameeyey mar haddaan wahabi ahayn waa mushrik kuwa odhanaya, kuwa inaan ku radiyo. laana alwahabiyata wahabinimada cindahum agtooda waxay ka tahay weli iyaga kuwa bimasaabati sunnati nabawiya, sidii sunnihii nebiga oo kale ayay ka dhigeen wahabinimadooda. sunnihii nebiga yajuu waajibay al-iqtidaa in lagu daydo bihaa iyada sunnaha nebiga bilqalbi walqaalbi, jirka iyo qalbigaba in laga daydo sunnihii nebiga ee ahaa sidaa ayay wahaabiyadii ka dhigeen saas oo kale. markay arrintoodu saa tahay wakaannahu xabad muddaca alwaxyi ilaahi, waxyigii ilaahay iska dhahaa inamaa unzila calaa maxamed bin cabdilwahaab aad mudda cindigooda markaa in maxamed bin cabdilwahaab ilaahay ku soo dejiyey waxyigii. maxamed bin cabdilwahaabtii almutawafaa dhintay sanata 1206 1206 markii hijrada ahay dhintay. laa inaan lagu soo dejin calaa maxamed bin cabdullah, inaan waxyigii ilaahay nebi maxamed ku soo degino sala allahu calayhi wasalam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ee uu maxamed bin cabdilwahaab waxyii ku soo degay ayaad muddaasay ka dhigeen. maxaa yeelay markii qofku ay shahaato oo uu salaada tukado oo uu soomo oo uu zakada bixiyo oo uu xajiyo haddaan mar wahaabi noqonin waa mushrik, saasay yidhaah. taasina waxay ka dhigan tahay inuu waxyigii maxamed cabdilwahaab ku soo degaya aan nebi maxamed ku soo deginba. baaqoy waxaan leeyahay وشيخ يلي كتاب ألفين بأن هذه المزاعم شغشة النوعاسي يوان فارحة بحلة منه ليس مصدرها مشي كسو في شيء معها نقولي إلا الجهل والجاهل نقولي واحد ساعة كوحر لي ساعة سنية ليش هذا الحسن كسو بحي وهالجاهل نمع كلام هذا جاهل نمع الذي جاهل المدين هو عدة والعبار عذر كي دوال اللواي أحيد في كل زمان ومكان، زمن والبع هي مكان والبع، والذي كيوي يبو يعذرك جاهل لماذا عين كاسي يا نوع عاسي لا يقتل أعضاء الجسم شركة حبنه سأكري عن دينيني وحدها كريجة إنما يقتل معا أعضاء الأمة جمعاء أمة أردن حبنه يدي أي دينيان. ولا شك وحنسك الحين بوشاف أن هذه الخلافات خلافات النوعانية التي تمنع بها مجتمعنا القومي في عصر الحالي، خلافات كانوا عاصوا مجتمعين ما أنت قوميين ما أنت جوكته عصر ما أنت عن جوكته خلافات كان لو قال ضيستي جاء الوحي كتب بالنتيجة لسببين ظاهرين لبس سبب ومقنعية أي كتب بالشيخ كتاب تألفي. أول هنا تكين في الهرق هو الجهل المركب، الجاهل مركبة
ayaa keentay jaahilnimada markabkii waa maxay waa nin inuu wax yaqaano nin aan waxba aqoon hadda inuu wax yaqaano isu qaba kaasaa jaahil markaba la yidhahda alladii kii weeye buu jaahilka markabkii laa yumayizu saaxiibkiisu aanu kala garanayn bayna alkhabiisi waطayib waxa xun iyo waxa san aanu kala garanayn weeyaan walaa bayna almanduubi walmakruuh waxa karaahiyada ah iyo waxa sunnahaana aanu kala garanayn uma laa yactarif bidali haddana fayaskut isagoo dhibaatadaa qaba hadda jaahilnimada caynkaasa haddana jaahilnimadiisa ma ictiraafayo oo ma aamusayo inuu wax yaqaano ismoodayaayo wuu hadlaya taa jaahil murakaba wey taas waa sababta keentay waxaan wahabinimada keentay waa taas buu wathani sababta labaad buu huwa cadamu fahmi bacdi almasaa'il addiiniya fahman xaqiiqiya waxaa kaloo keenay buu masaa'isha diiniga ah kuwa ka mid ah oo aan fahmin fahmi xaqiiqiya aan la fahmin ayaa keentay oo mima taahalam deedna u banaysay fursatan jaanis bay siisay jaahilnimada noocaasi liyuxarifu bacd alaayaati aayadaha qayb ka mida inay leexiyaan iyo walaxaadiid iyo xadiidaanka inay qayb ka mida leexiyaan can mawaadica meelihii ay ku habboonayd ay ku soo waaroortay ay ka leexiyaan faytartaa marka waxaa ka ratmay buy ijraamulberi qof beri ah oon dembi lahayn oo dembi la saaro taaratan mar iyo ibraarulmajrimi iyo ninkii mujrimka dambiilaha ahaa oo la beri yeelayo taaratan ukhre mar kaleetana waliajli haadayni sababayn labadaas sababood dartood camat ilbalwaa balaayo ayaa camintay biintishaari alkhilaafaat addiiniya in khilaaf diini ku magacaaban inuu soo baxo faafo oo mima addaadina keenay ilaa qadci alarxaam rixintii in la gooyo wahijraan ilmasaajid masaajidii caaliga ahayd ee muslimkii caaliga ku tukanayay oo ay ka hijroodaan ay ka go-aan bay kuga gooya samaystaan iyo waikhtilaafi lmafaahimi fahmadii oo la fahmi waayo si xaqiiqadu asayd la fahmi waayo oo lasuu khilaafo iyo walcaaraay ra'yigo iskhilaafa waakhira ugu dambayn ikhtala diinu bitiin diintii iyo dabadiiba isku dartartay waintaha alcamru amarkii deedna wuxuu ku dhammaaday ila alfawda isqaba sharcaan nin walba wuxuu doon iska hadlo waqadiima hor ayaa su-ila la su-aalay xakiimun can kasrati alkhilaafaat faajaab khilaafka badnaantiisa ayaa nin xakiima la su-aalay hore deedna wuxuu ku jawaabay low sakata aljaahilu lartafaca alkhilaaf hadduu jaahilku aamusi lahaa khilaafba waa la waayi lahaa iyo caje waxaa ka dhacday nin jaahil ah oo haddana cilmi sheeganaya oo meel aan meeshii ahayn waddadii marinay iska qardadacinaya sheekhii kitaabka alifka wuxuu yihi maa axwajana aliyo maxaa maanta nooga baahi badan ila sacyi inaan u soconno walaa atafaquhi diinta inaan fahmno diinta xaqiiqadeeda inaan fahmno fi diin diinta aan fahmno walictisaam walihtimaam bihi inaan u murugno diinta ka waajibin muqadasa iyadoo waajib muqadasa ah saas wamaa ajdara binaa maxaa nagaga owlaysan altamasuka inaan qabsanno bilkitaabi wa sun qur'aanka iyo xadiidka wataqayada biaxkaamihima oo aan xukunkooda aan markaa ku xidhnaano qawlan iyo wa ficlanba ficliya qodo wamaa ascadana maxaa naga niimaan badan buri loo waqafnaa safan wamutaxid haddaan saf keliya aan noqon lahayn muslimka haddaan nahay wa qalban waaxid isku qalbi kale aan ahaan lahayn ضد هذه الخلافات وخلافات كان انه كغفر تغنو الهدامة الدمينيسة والتقسيمات الطائفية هي قيبها فرحة بدن كوحاها فرحة بدن الصوبحي آخر الزمن التي في شأنها شأن غير وجهي خلق التباغض إن أبورته اسو حرام وتقاطع اسكوين بين أفراد المسلمين وجماعاتهم مسلم كأفراد اسكويو يجمع اسكويو حبلا maxaa ka wanaag badaan lahaa low istaxdarnaa haddaan soo xaadirsan lahayn biadhaanina qalbigeen aan ku soo xaadirin lahayn ahd alkhulafaa'i araashidiin waktigii khulafada raashidiinta ay joogeen wasalagna aan raaci lahayn bitasarufaatina addiiniyati wadunyawiya oo aan raaci lahayn markaa tasarufaadkeena diiniga iyo ka dunyadana aynu raaci lahayn wadadooda nahja almuslimiina alawaliin aan raaci lahayn muslimkii hore wadadiisa oo min almuhaajiriina iyo walansaar ansaartii iyo muhaajiriintii wadadoodii hore aan raaci lahayn aladiina wasfahum allahu tacaala biqawlih kuwaasoo ilaahay uu ku tilmaamay hadalkiisii